Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada Nuursha Academy. Waxaan qaadanaynaa cashirkeeni koowaad ee ku saabsiisnaa barashada af Ingiriiska. English alphabets ayaan ka bilaabeynaa. Waa alifbeetada Ingiriiska. Alifbeetada Ingiriiska waxay ka kooban tahay 26 xaraf. 26 xaraf ayay ka kooban tahay. Xarfahan halkan ku qoran waxay isugu jiraan capital iyo lower case wax la yiraahdo. Capital waa xaraf weyn, lower case waa xaraf yar. Marka mid walbo 26 ka xaraf, mid walbaba xarafkiisa weyn iyo xarafkiisa yar ayaa halkan ku qoran. Waxaan ka bilaabeynaa A ilaa Z. Marka insha Allah isla socod wanaagsan. A xarafkiisa weyn waa kan capital la yiraahdaa. Lower case ka ama xarafkiisa yarna waa kana A B aan wada akhriyo hal mar A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. xarafkan Z mararka qaar waxaa la yiraahdaa Z, mararka qaar saas loogu dhawaaqi karaa Z ama Z waa isku mid. Marka waxaan rajeynaa inaad fahanteen. Waxa kaloo aan idinku daraa 26 ka xaraf ee ABC-du ay ka kooban tahay 5 ka mid ah waxaa la yiraahdaa shaqalo ama vowels. 21 ka kalena waxaa la yiraahdaa shibanayaal ama consonants. Cashir dhameystiran ayaan ka sameynaynaa. Cashirka labaad aan ku qaadan doonaa insha Allah. Laakiin hadda si hordhac ah xarfahan gadgaduudan ee aad arkaysaan waxaa la yiraahdaa vowels. waa 5 xaraf. waa kow, waa A E I O iyo U. 5taas xaraf waxaa la yiraahdaa vowels ama shaqal. erey walba oo Ingiriisna way ku jiraan. mararka qaar marka waxaa lagu daraa Y waxaa lagu daraa inay vowels ka tirsan tahay. cashirka labaad ayaan ayagoo faahfaahsan uga hadli doonaa. 5taas xaraf marka A E I O iyo U. 5taas xaraf waxaa la yiraahdaa vowels ama shaqal. xarfahan kale ee madmadow intaas kale ay ka soo hartayna waxaa la yiraahdaa consonants ama shibanayaal. marka cashirka labaad aan ku arki doonaa. waxbaha isku wareerin. hadda waxaa kaliya oo sameysaa xarfahan oo English alphabetska halkan ku qoran ayaad soo qoraysaa. buuggaaga iyo qalinkaaga soo qaado, kadibna A up to Z soo qor, kadibna adoo akhrinayo cod ii soo duub, lambarkayga gaarkan iigu soo dir si aan kaaga saxo insha Allah. la soco cashirka labaad. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.